maanta waxaan rabaa inaan intuso geedkan oo Soomaali wax lagu dhalo ma naqaano square waxaan rabaa inaan ka sameeyo qudaartan waxay ka kooban tahay basal waa barbanooni waa tuun halkan waxa iigu jiro asagana kaabash oo la xoqay kaarooto la xoqay iyo cheese aan xoqay kaabashkan waayaan waa xoqay kabacdina saas u noqday insha Allah kana waxaan rabaa inaan tuso marka aan waxaan rabaa inaan ka dhigo jarjaro khafiif u jarjaro kabacdina inaan dubo kabacdina qudaartan ku laabaya waa in tusaya insha Allah taas ka kooban basashan shiilaya kabacdina waxaan ku darayaa kaarigan حواش تعرف تاخد الفلفل ده هو شكل الدون بيبر كانوا كبر صنايا الخليط دهن أخو برصنكا خليط دهن أو كبر برصنكا خليط دهن كيوشو هذه وحركته في داخل الصنصة عارفة كاروت هذه نكون دريا عندنا كاروت هذه تعرف كمان نكون دريا كنا كارش فيه ويان دار تهرود ما كترسن كرتا سوشو غورك ما ياندانا عارفنا بويان هرود كراشن كلو كترتلو حواش كانوا كتريا حواش غورغورو شيدن كورياندر ويه marka uu ka noqdeen waxaan ku darsanayaa geedkii maxaa la dhahaa bambanooni cagaarkaan ku darayaa isaga wax badan ma ku shiidayo كليا أي هذا تبعي نوع كقاضية جيت كانوا حرامين نسوسي بعوسين يعني صانع خفيف هو اللي بيسا كيف يري ركليسا ما دام لو هو هنا نقول كبعد نحطه في الضوئية هنا تقرصان خفيف هذا وهنا كلكتي يمكن سؤال اللي باين هيك ما دار الرواتب إلا السنة
okay waxaan sameynayaa kiyaan soo qaadaa waan gudayaa qafiif oo inuu jilcaal rabaa wax yar هدارك سليت بربيرة وتقدر كرتها هدارك بحتنا كده دوبارته ودوب السوا وحرق عدو إنو تشلعو إلا جيت كان سأنتاج وضار مقوغو لعما يو إنو تشلعو وهدو قوغو سوال لعما saasaan ku wada dhammaynayaa hadhowna intusina wax yar waxaan samaysanayaa soosa hadhow korka uga darayaa basal yar waayaan iyo saliid hadaan yaani yar ku darsanayaa ayaa ishiid waay sidoo kale kuriyaan waxaan ku darsanayaa bakaari maraq dhanaan waxa maraqaas oo dhanaan baan ku darsan karaa way soos ah inaysa soo waa taqaanaa maraqaas ku darsan karaa waxa korkana uga daro waxaan ka rabbigayaa ooga culus oo rasiin ah inta kala dhawaan pepper baan ku darayaa wax yar oo meel dheera filfisha yar oo madow ay filfisha madow صوص كويس ديار بسم الله الرحمن الرحيم. حتى حنشوف سيده او خضارتي بان كدوبيا سيده لوgu tusaya insha Allah saad duubeysa sidii sambuuskii oo bilku lulaabay camal oo kala sameynaysa waa ku laabaysa qudaartii saas waa ka dhigaysaa kulli waa ku safaysaa inta ugu horeysa intusayaa kabacdi markaan dhameeya intusayaas waxaan korka uga darayo inta ugu horeysa intusay inta kale saa markaa wada simo waa intusaya insha Allah saas ku soo baxay bacdina sooskan korka ugu shubaynaa insha Allah sooska dhan waan gaargaarsiinayaa sidii lisaanyada camal oo kale waaye
saas ku soo baxay haddana jiiskaan ku darayaa jiiska daarta waxaa waa iska yareyn kartaa mas qasabna in aan jiis badan ku dadhid aan laakiin jiiska badan aan jecelahay kabacdi sidaasaa foornada ku gelinaysaa hadhow marka soo baxo insha allah is arkayna geedkan bulgaraa lahaa isaga kaarti sida bariiska u samaysan kartaa oo saliid iyo basala ku shiili kartaa kabacdina sida bariiska u karsan kartaa laakiin aniga ma rabo fit badan biyo kaliya wax yar ku karinayaa waan tusay insha allah hadhow waxaan samayn rabaa saladkan waa salad aan jarjaray kabacdina halkaan waxay ku jira maxaa lahaa mayonnaise kaas ay ku jira halkaana tuun fiska ay ku jira tuuna kanaan ku darrabaa dressingkaas isku walaaqaya xadan bismillah saas ku soo baxday insha allah marka waxaan tusayaa bulgarkan karsaday asaga insha allah heer saxan ku kurayaa bismillah ma sha allah qudaarta saas ku soo baxday aan duubay bulgarkii iyo saladkii aan mayonnaise iyo tuunada ka sameeyay ma sha allah intaan waa in yar oo caafimaada waqti badan aan ka qaadanay sameeyntooda maxaa lahaan qudaarta bariis aad ku cuni kartaa intaan daartida qudaar iyo salad yar u jaranaysaa geeska dhiganaysaa intaada kugu filan bari ma u baahnid inaad raashin xataa tusaadid bulgarkan waxa waayaan basta ku jira bulgar waxa jira aan waxba ku jirin laakiin hadda kan basta la jajabiya ku dhex jirta bulgarrada waa kala duwan yihiin mid oo waxa jira sida bariiskii kale iska jajaban qamadi waa bulgarka maqlaysan marka ma sha Allah waa cunno yar oo caafimaad leh marka waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan ma sha Allah